الله وبركاته kusoo dhawaada channelkayga oo walaashin Maryan maanta topigan waxa weeye iska ilaali shan nin oo nimanka Soomaaliyeed kamid ah insha Allah kusoo dhawaada hadaa ku cutubtiin subscribe haga ilaalinina hadii kale like and share insha Allah aad bay caawinaysaa insha Allah marka topigan waan bilaabana insha Allah iska ilaali shan nin oo nimanka Soomaaliyeed kamid ah ka ugu horeeya waxa weeye visa doon ama sharci doon waa nin aan jacaylhayn oo wadan raba oo aan gabadh doonayn marka jacaylkiisu waa wadan marka wuxuu doonayaa visa free inuu helo marka wuxuu isku dayayaa si kasta inuu isu xayeysiiyo oo isaka ka dhigo waxaan ahayn oo ku yiraahdo waxaan aan run ahayn ku sheego ayuu isku dayayaa waxa laga yaabaa inuu waxyaalo badan kugu sheekeeyo aan run ahayn wuxuu isku dayaa inuu ka dhaadhiyo oo ku yiraahdo waan ku jecelahay qofka wanaagsan ma jiro adiga dadka ugu qurux badan qof qiimo iyo qaayraad tahay waligayba adiga oo kale ayaan ku raadinayay marka wuxuu rabaa sharci free oo aan u shaqaysan oo aan lacag kaga bixin ayuu doonayaa inuu helo marka suuragal ma hadee qof wax free iska doonaya wax kasta iska oranaya marka iska ilaaliya marka aragtaan ka carara agaha wax ka daya hays dub ha soo eegina iska ilaaliya nimanka saasa haduu qof taqaano yahay waa gooni ama qof family-ga oo garanayso hadhow inaanu ka tagay inaad ogtahay laakiin inaad waxba soo hayn oo ay Facebook ka baratay wuxuu ka rabaa waxa weeye sharci haduu gabadh doonayo meesha jooga uu heli lahaa way ka buuxaan Soomaaliya dumar meel kasta dumar ba Soomaaliya jooga hableeyeen oo qurux badan baa jooga marka haduu qurbo doonayo oo qof Facebook ka arkay oo aan aqoon doonayo adiga jacayl kuma hayo ee wadan buu jecel yahay oo wadan buu rabaa marka iska ilaaliya ka ku xiga waxa weeye lacag doon waa nin lazy waa nin useless waa nin aan weligii shaqaysan haduu doono drugs iyo khamri ayuu qaataa marka maruu inuu shaqaysto wuxuu rabaa naag lacag haysata oo lacag aan u shaqaysan oo u daalin ayuu doonayaa marka wuxuu doonayaa adiga inuu kugu soo galgalo jacayl iyo balaay ku sheego waan ku jecelahay adigoo kale ma jirto gabadh qiimo iyo qaayraad tahay buu ka dhaadhicinaya wuxuu soo kaadhigay qof aan ahayn wuxuu soo kaadhigay qof millionaire oo aan weligii lacag u baahan ayuu soo kaadhigaya marka iska ilaaliya nimanka saasa ee idin isticmaalin iyo idin use garaynin iska ilaaliya lacag doon ka carara marka aragtaan lacagaha wax ka daya ka carara tow ka dhaha dib ha soo eegina lacag doon iska ilaaliya lacag doon ka saddexaad waxa weeye guri doon waa nin doonaya inaanu guri kiro ka bixin oo guri lacag kaga bixin oo meel uu soo galo oo diyaara oo la soo sharxay oo dhaga imaado buu rabaa marka kaan iska ilaaliya waxba kama faa'iideysaan nin jacayl hayo maaha laakiin guri buu rabaa iska firiya oo iska dhex fadhiisto oo aan waxba ka bixinayo rabaa kaan iska ilaaliya qiimo iyo qaayatoon malkaasu nin la daneeyo maaha iska ilaaliya ku xiga waxaan u bixiyay nasasho doon waa nin guri soo dhistay oo caruur leh markay caruurtii ka badatay oo sariirtii laga soo tuuray oo guriga ku filaan waayay ayuu wuxuu rabaa meel uu ku yara nasto oo markuu shaqada ka yimaado cabaar soo fadhiisto gabadh qurux badan oo cadar ku soo buufisay oo xiisaynaysa oo cusub oo yare la sheekaysto rabaa laakiin saxo kuma soo kordhinayo lacag kuma siinayo biilka ma bixinayo waayo guriga already hawl kala furan shandado waaweyn buu sitaa oo caruur iyo dumar ka buuxaan kaana iska ilaaliya wax la yiraahdo guri doon wax la yiraahdo nasasho doon waxa la wax wanaag oo idin hayaan ma jirto dumarka iminka waxa batay part time wife-ka iyo dumarka la isticmaalo la use gareeya batay hadhowto hadda gabadhiisa ogaataan uu ku furayaa oo uu ka tagayaa qod marka horeba ujeedadiisu waxay ahayd inuu meel ku nasto helo marka kaan iska ilaaliya ka ugu dambeeya waxaan bixiyay dhalinyaro doon ama yaraan doon waa nin doonaya inuu yar raba oo qurux badan waa oday gaboobay oo da'diisii soo dhamaystay oo aan ku faraxsanayn da'diisa weyn marka wuxuu rabaa inuu isku yara dheereeyo oo ku xaragoodo
oo dadka uu isku tuso oo dadka uu tusiyo inuu weli yar yahay oo aan gaboobin oo wax samayn karayo. markaa waxaa rabaa dadku inay yidhahdaan alle hebel maasha allah iminka waa gabadh cusub aroosay ilaa xoog buu ahaa ilaa nin weynba muu ahayn waa nin dhalinyaro ah iminka waa ina yaro qurux badan oo teenage aroos ninku waa xoog ninku maaha nin weyn maaha buu doonaya in la yidhaaho. markaa kaana iska ilaaliya yaraan doon iyo idinku danaysanin idinkoo dhalinyaro ah oo hablo yaryara oo qurux badana oday gaboobay iska ilaaliya inuu idinku danaysto uu idinku dulkufaya ushii markay ka dhacdo doonaya qofka soo qaada. markaa insha Allah iska ilaaliya kaasna waxaa la yidhahaa yaraan doon idinma danaynayo laakiin isaga danaysanaya. iminka waxaa soo baxay niman opportunistiga oo danaystayaala oo dumarka ku danaysta ayaa soo baxay iyo idin isticmaalaya idinku danaysanin. hablaha Soomaaliyeed maasha Allah hablo aad u qiimo badan oo qaaya badan wax kasta qabsan karaan laakiinse waxaa yara ku badan kalsoonida maxaa la yidhahaa kalsoonida ku yar aaminkuna uu ku badan yahay oo nimanka way aaminaan markay arkaan nin yare wax wanaagsan u sheegaya ayay moodaan inay runka tahay laakiinse nimanku aad bay beenta ugu fiican yihiin oo dumarka been iyo balaayo ka dhaadhiciyaan. qaar wanaagsani way jiraan laakiin inta badan imika waqtigan aynu joogno hablaha qurbaha ku nool aad iyo aad baa la isugu miskiinayaa oo qaar weligoodba siyaasad iyo chatline ku jiray ayaa kuusoo galaya Facebook oo isu kaa macaanin isaga kaa dhigaya ninka adduunyada ugu fiican. markaa waxaan idin doonaya idin idin sheego weliba experience baa waxaan u leeyahay waana dad badan oo ay ku dhacday iska ilaaliya waxaana sheegayna waa run way dhacaan. hadda habla Soomaaliyeed tihiin inaan isku duubnaano oo wax isu sheegnaa fiican iska ilaaliya nimanka opportunistiga habla isticmaalaya khayr iyo khaatmada lahayd iska ilaaliya insha Allah. taasaan maanta video ku soo gaabanaya aad iyo aad baan idin salaamaya. thank you and isku day please in subscribe saarta hadday igu cusub tihiin idin like share until next time insha Allah. waan idin salaamaya hadda video ka jeclaataan insha Allah isoo sheega si aan more videos like that u sameeyo. okay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.